kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha qaaya leh meel kasto aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada channelka aan ku leenahay barta YouTube-ka ee Kulmis Media. Qaybtan wararka wixii ka saacidin doonta inaan la socoto wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo dalka gudihiisaba. War hadda soo dhacay ayaa sheegaya wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad ayaa ka diiriyay qaabka dowladda federaalka Soomaaliya u maamulayso kiiska dacwadda badda. Isagoo ka hadlay arrimo badan oo mugdi ku jira ayaa waxa uu yiri dowladda Soomaaliya war sugan ayay siin jirtay bulshada marka la tagayo maxkamadda iyo sababta loo tagayo, balse haatan aanay jirin oo dadka ay ka maqlaan laba jeer banaanka kadibna ay dowladda xaqiijisay. Waxa uu sheegay in markii u horeysay ay tahay siyaasi qayb ka noqdo ergada Soomaaliya matalaysa, halka markii hore ay guddi farsamo iyo qareeno ay matali jireen. Dacwadda badda markii la diyaarinayay qarsoodi ayay ahayd. Intii ka dambeysay dowladda ayaa bulshada war rasmi ah oo haddana sugan ka siin jirtay ergada tagaysa ICJ goorta iyo waliba sababta loo tagayo. Sidoo kale inta maxkamadda la joogo ayaa mar kale shacabka war sugan laga siin jiray sida ay wax u socdaan. Haddase ugu yaraan laba jeer ayaa fal dhacay kaas oo ay shacabka ka maqneen banaanka, khaasatan Facebook. Kadibna ay dowladda xaqiijisay waa markii u horeysay ee siyaasi uu ka mid noqdo ergada Soomaaliya. Ma xuma in wax cusub la isku dayo, laakiin haddii sidii hore ay wanaag badiso ma ahan in lagu adkaysto sida cusub. Sidaas waxaa yiri Yuusuf Garaad.